fariin ku aadan ka qaybgalka haweenka ee golaha wakiilada dawladda Puntland ee xulashadooda ku socota nabadoonnada cuqaasha iyo ismada Puntland ku socota xukuumadda ku socota guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka golaha wakiilada annagoo ah qayb kamid ah haweenka isuguna jira bulshada rayidka u qareemayaasha haweenka iyo haweenka hanka siyaasadeed leh waxaan munaasabadan isugu nimid xoojinta sidii loo heli lahaa doorasho loo dhan yahay nabad ah haweenkuna dowr ku leeyihiin waxaan xasuusinaynaa cid kasta oo ay qusayso in haweenku ka yihiin bulshada Puntland in ka badan 60% leh aqoon yahano isugu jira waayo arag siyaasadeed xirfadlayaal sharci yaqaano iyo ganacsato dhaqaalayahan ah haddaba kulankan oo muddo dheer socday laguna la faguray xaaladda dalka iyo doorka haweenka iyo ka qaybgalka doorashooyinka waxa lagu qoray awoodda iyo waxqabadka haweenka iyo muhiimadda ay u leedahay in door muhiim ah ay ka qaataan miisaska talagoynta iyo sharci dejinta dalka waxaana kulankan ka soo baxay qodobada hoos ku qoran haweenku waxay isla qaateen muhiimadda ay u leedahay dhamaystirka dawladnimada adeega bulshada iyo dejinta shuruucda iyo in haweenku qayb ka noqdaan golayaasha kala duwan ee dawladda halkaana kuraas ay ku matalaan bulshaweynta Puntland haweenku waxay codsanayaan kuna adkeynayaan nabadoonnada iyo ismada inay siiyaan doorka matalaadeed ee xulashada xildhibaanada si gaar ah waxay farayaan beelaha leh 3 xildhibaan iyo wixii ka badanba in ay xubno gabdho ah soo qoraan xeeriyaan baahida loo qabo dawlad wanaag loo dhan yahay qodobka 3aad haweenku waxay codsanayaan dawladda in lifaaqa doorashada lagu daro qoondada haweenka ee ay ahayd 3 kursi in mid haween noqdo haddaan laga badin karin si loo helo sharci ay xigtaan odayaasha dhaqanka ee saxiixa leh iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland 4 haweenku waxay codsanayaan guddiga xalinta khilaafaadka in ay u cadaalad sameeyaan musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa ragga ah iyagoo raacaya lifaaqa sharciga ah ee dawladda dejiso 5 ugu dambeyn haweenku waxay codsanayaan dhowrista dastuurka Puntland gaar ahaan qodobka 12aad ee dastuurka Puntland oo damaanad qaadaya xuquuqda sinaanta muwaadinka mamnuucayana dhammaan nooc walba oo takoor ah oo lagu la kaco qofka muwaadinka iyo dastuurka ku meel gaarka ee dawladda federaalka ee Soomaaliyeed oo qodobkiisa 3aad ee mabaadi'da asaasiga ah iyo dastuurku si cad ugu qeexayo farqada 5aad waa in haweenku ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee 3 laamood ee dawladda iyo gudiyada madaxa bannaan gunaanadkii waxaan faraynaa cid kasta oo dowr ku leh xulista xildhibaanada golaha wakiilada Puntland inay hubiyaan doorasho loo dhan yahay haweenkuna qayb ka yihiin nimanku waa isisiiyeen bahasha waa isisiiyeen inay iyagu leeyihiin haddana waqti fog bay isisiiyeen oo iska dhaadhiciyeen waxaan raadiyay anigu xildhibaan nin kasta waxaan u tagay nabadoonnadaydii waxaan u tagay isimadeydii waxaan u tagay waxgaradka oo dhan meel kasta waan u maray haddana saas oo ay tahay nimanku ma rabaan codkayga inay maqlaan baan rabaa nimanku ma rabaan in dumarku soo baxaan waxaan u sharaxanahay xildhibaan golaha Puntland gobolka Sanaag insha Allah aad baan uga mahadcelinayaa BDRC iyo tiimka gabdhaha ee soo abaabulay hawshan muhiimadda ugu weyn sida gabdhaha halka ka wada sheegeen waxa weeye gabdhuhu waxay ka mid yihiin bulshada gabdhuhu waxay wax u barteen bulshada gabdhuhu waxay u adeegayaan bulshada gabadha hadday wax barato bulshada u adeegaysaa bulshadayna ka mid tahay dowr bay leedahay matalaad bay leedahay mansab bay leedahay aragti bay leedahay hadaf bay leedahay inta ninka ku jirta ayaa gabadhana ku jirta xaqiiqatan runta haddaan ii sheego gabdhaha iyo ragga waxaan ku kala duwanay inaan ka fiican nahay maahan lagama yaabo marna mentality ahaan education ahaan inaan uga hooseeyo factiska ragga waxay ku mashquulsan yihiin waxyaabo yar oo basiir ma jira nin muwaadin ah ismi muwaadin marka la yahay muwaadin waa qof ka fekeraya bulshadiisa min tixid ila fog sanadka waxaan ahay anigu musharax xildhibaan gobolka Mudug degmada Xarfo caqabado badan way taagan yihiin caqabado badan aan filayay way dhaceen kuwa aan filayninna way maadeen oo faahdo kuwii aan awal filayay ka culus caqabadii qabsaday waxa kamid ah ciyaalka aan muxuu ahay dhalay iyo anigu inaan kala deegaan nahay oo taas ay tahay caqabada koowaad oo ay yihiin maxaa leeyihiin reerku nama matasho sanad kasta waxa soo baxda warbixin ama ribood ah dumarka Puntland ama dumarka Soomaaliyeed inay ka badan yihiin ragga Soomaaliyeed
halkiina waxa ku soo beeganta baa la yiraahdaa 8 dumar ama 10 dumar waxay og yihiin inay boog nagu tahay qac way naga siiyaan positive ka u qaadana waxaan dhahnaa waxbaad ku heli doontaan dimuqraadiyaddu way dhicisowday laakiin doorashada hadda 66 xildhibaan hal mid baa sanadkii hore nooga soo beegantay sanadkana ma aqaan wax ku soo beegmaya rajadu marba sibay noqonaysaa waxaan ka mid ahay gabdhaha musharaxiinta ee u tartamaya sanadka 2024-2029 golaha shacabka insha Allah anigu hadda intii aan musharaxnimada isu soo taagay habeenkii madaxweynuhu ku dhawaaqay 66 in lagu noqonayo baan horta sticker yar boobsiyay kadibna aan soo dhigay anoo ugu talagalay waxa weeye inaan ragga qac ka yeersiyo hadda waxa la isticmaalaa kelmaddaas qacda ah waxa weeye waxaan ugu talagalay inaan rag badan oo doonayay oo jifi ahaan sanadka aan u wada lahayn kursigan inaan qac ka yeersiyo waa saayid ku sheegay waana ka yeersiiyay oo isla markii waa la isoo waxa la igu yiri naam ku diyaarsanaa naam hore u ogeyd in 66 lagu noqonayo ma madaxweynaha go'aankiisa la socotay waxyaabo su'aalo badan baa la weydiiyay in caqabaduhu waxay yihiin intooda badan waxa laga yaabaa madaxweynaha marka talada hayay u raadinayna in 5 sano ba dhamaatay 26 sano bay Puntland jirtay 26 ka sano kuraastaas waxa fadhiyay rag gabdhuhu iyagoo bilaa camala oo aan wax shaqo ahayn bay waxay uga waxtarooyihiin bulshada ragga cid walibana way ogtahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu cadaalad sameeyo inuu noo sameeyo qoonda kursigii reerkii 5 kursi laba in la yiraahdo 2 gabdhood ha keeneen